رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. سؤال sheeg xadiiska ugu horreeyay ee laga qoray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Su'aasha haddaan mar kale ku celiyo. Sheeg xadiiska ugu horreeyay ee laga qoray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jawaabta isku day waxaad haysataa 10 sekin. jawaabta waa xadiiska camalku wuxuu ku xiran yahay niyadda waxaana wariyay Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuuna ku sugan yahay saxiix al-Bukhari iyo saxiixu Muslim. Su'aasha labaad waa kuma saxaabigii ugu horreeyay ee Quraanka si rasmi ah ugu akhriyay Quraysh hortooda. Su'aasha haddaan mar kale ku celiyo. waa kuma saxaabigii ugu horreeyay ee Quraanka si rasmi ah ugu akhriyay Quraysh hortooda. Jawaabta isku day waxaad haysataa 10 sekin. jawaabta waa Cabdullaahi bin Mascuud radiyallahu anhu wuxuuna ku akhriyay suuradda Ar-Raxmaan. Su'aasha saddexaad waa kuma saxaabigii keliya ee dhulka lagu aasay isagoo aan dhiman. Su'aasha haddaan mar kale ku celiyo. waa kuma saxaabigii keliya ee dhulka lagu aasay isagoo aan dhiman. Jawaabta isku day waxaad haysataa 10 sekin. jawaabta waa Cabdullaahi bin Xudaafah as-Sahmi radiyallahu anhu oo boqorkii Faaris ku amray in dhulka lagu aaso si uu u cabsado laakiin Ilaahay wuu badbaadiyey. Su'aasha afaraad kumuu ahaa ninka keliya ee Quraanka oo dhan gacantiisa ku qoray xilligii nebiga. Su'aasha haddaan mar kale ku celiyo. Kumuu ahaa ninka keliya ee Quraanka oo dhan gacantiisa ku qoray xilligii nebiga. Jawaabta isku day waxaad haysataa 10 sekin. jawaabta waa Zayd bin Thabit radiyallahu anhu oo ahaa qoraaga rasmiga ah ee waxyiga. Su'aasha shanaad maxaa lagu magacaabaa dagaalkii ugu horreeyay ee Islaamka? haddaan mar kale ku celiyo sheeg magaca dagaalkii ugu horreeyay ee Islaamka. haddaad garanayso jawaabta ku soo qor kommentiga ama qaybta faalada. mida kale ha ilaawin inaad muuqaalkan like saarto muhiim ayay noo tahay ha inaga ilaawin laayta sidoo kalena channelka subscribe noo saar. waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.